السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa in aan ka hadlo nin la yiraahdo Cabdixakiin xerta sheekha oo degan Maraykan Minneapolis. waxa uu waraystay rag dhulbahanta ah oo jilibkiisa ah oo ilma adeertiis ah oo jaamacsiyaad ah ayuu waraystay uu codadkana ka soo duubay bal ra'yigoodu sida uu yahay raggan oo jira dhanka Muuse Biixi iyo Somaliland, raggan oo wali soo raacin tolkood, raggan oo wali ku soo biirin tolkood, raggan oo garaadadooda hadalkoodii aan wali maqal, iska dhagatiray, iska indhasaabay, ignore gareeyay garaadado dhulbahanta oo dhan waxa ay ku baaqayaan. marka raggan mid uu is ilaalinayay oo waa ninka la yiraahdo Ibrahim Ashkir uu is ilaalinayay. wuxuu weydiiyay, wuxuu yiri Cabdixakiin xerta sheekha, wuxuu yiri annaga jaamac siyaad ah imisa naga dhimatay ee la jirta Somaliland ah, waan Somaliland dareysanahay. waxa uu yiri Ibrahim Ashkir isagoo iska gaabinaya, wuxuu yiri ninyahow waa ogtahay sidii aan ku kala tagnay, maxaad hadda iga rabtaa? wuxuu yiri marna seedigay baa tahay, marna ina adeerkay baa tahay, meelna kala ma jiro, mana kala tagayno, sidaan kuma kala tagayno, warheedhe bal ii warano xagga Somaliland reerka jira, bal ka waran jaamac siyaad maxaa ka dhintay, Somaliland maxaa ka dhintay? wuxuu yiri waa badan yihiin. xaggan kale buu yiri maxaan ku iraahdaa SSC-na dhulbahantaha jaamac siyaadka ah maxaa ka dhintay? wuxuu yiri waa badan yihiin. intaas adig ku soo koobay. ninkan Ibrahim Ashkir la yiraahdo wuxuu ahaa nin gaabsanaya oo is ilaalinaya in uusan hadal ka tagin, balse nin ilma adeer run ah baan nahay uu yiri xerta sheekha Cabdixakiin. waxa uu yiri ilma adeer run ah ayaan nahay, ina ayahiisi ayuu sheegay, ina adeerkay wayuu yiri adeerkay run ahaa dhalay. waxaa la yiraahdaa Faarax Faandhe wuu waraystay, wuxuu yiri war Faarax Faandhow, ina adeerow maxaan ku iraahdaa waxbaan kuu soo dirayaa, reerka waxbaa loo wadaaye bal waran. ninkii de waxa uu ku hadlay wax aan qof bila aadan ah oo damiir leh uusan ku hadli karin. waxa uu yiri wiilkaagi waxa uu jiraa dhanka SSC, walaalow ka soo bax meesha, lacag baan kuu soo dirayaa. waanad ogtahay in ilmaha aan aniga jaamacadaha ka bixinayay oo aan dhaqaaleynayay ilmahaaga inta ay ku siiyaan anaa kuu soo diraya ina adeerow ka soo bax iyo ka badane ka soo bax, iskaga soo baxo tolkeen aan raacno godobiyayna raacin beriye. ninkii weynaa Faarax Faandhe waxa uu ku leeyahay waxa aan wadaa danta jaamac siyaad. war maxaa jaamac siyaad dantooda wadaa buu yiri? sow kuwan magaalada yadii la burburinayo Somaliland burburinayso. waxa uu yiri waxa burburinaya waa dhulbahante, magaalada Laascaanood waxa burburinaya waa dhulbahante, balse annaga jaamac siyaad ah waxa way meesha waxaan u joogaa dantayada iyo xaqayaga. bal jaamac siyaad ilaah baa idinku dhaarshay, ma dhulbahanta mise waa qolo kale oo gooni ah oo magaca dhulbahanta aan sheegan oo lahayn? goormay jaamac siyaad ka baxeen dhulbahante? goormay dan gooniya yeesheen jaamac siyaad oo aanu dhulbahanta weyne lahayn? dhulbahantoo dhan garaadadii ayay maqleen oy ku daba fayleen. garaadadoodii madax meel ka sarreyso la salaaxa ma leh. madaxda Soomaaliyeed waa dhaqanka, weliba garaadada soo jireenka ah, ma aha kuwa gacan ku rimiska ah, ma aha kuwa siyaasadda loo samaystay, ma aha kuwa dhuuna qaatayaasha ah, ma aha kuwa ay wataan siyaasiyiintu
oo xilka iyo kuraasta ay ku raadsanayaan ma aha. garaadadii rasmiga ahaa, garaadadii abka asalka farac ka soo gaaray garaadnimada ayaa maanta dhulbahantoo dhan ku daba fayleen. danta dhulbahantana iyagaa yaqaana, because ayagaa madax u ah, iyagaa dadkan ilaahay ka sokow xukuma. marka ninkan dhulbahante laba u kala qaybinaya ma aha maxaan ku rahdaa jaamac siyaad oo dhan inay ku raacsan yihiin oo wiilkiisii baabas SSC ka soo jeeda oo xaggaas xiga oo xaggaas ka dagaalamaya. isaguna ciidan buu wataa baa lagu leeyahay, halkan buu ugu jiraa oo caws buu dhex galayay buu leeyahay cabdixakiin xerta sheekh. marka labadaasuba waa isdhaleen. adduunyada isoo raac ma jirto, ya sheekh baan ahay wiilkayguna sheekh buu noqonayaa ma jirto. waa kaa dadku kala damiir wanaagsan, dadku kala gobsan. marka nasab dhiman la leeyahay ma aha qof inuu nasab dhiman u dhashay uu jiro. nasab dhimannimada waxay noqon kartaa qof xun. runtii ninkan wuxuu ku leeyahay dhulbahante ayaa maxaan ku dhaha magaalada gubaaya oo garaacay. dhulbahante magaalada gubaaya oo garaacay hadday jiraan waa adoo kale, waa adiga. qofkan la adeegsanayo, lagu shaqaysanayo, la isticmaalayo, berrina sidii qashinkii loo tuuraayo ee zabaalada lagu dhex ridaayo weeye dhulbahantaha gubaaya. balse dhulbahante damiir iyo dhiigle iyo uus leh waa wiilka aad dhashay oo kale oo ku maxaan ku irahdaa ku go-a raggiisa, raacsan dadkiisa. war maxaan ku irahdaa muuse biixi ma magaalaa laga gubaya? ma hargeysaa ka gubanaysa? ma waxaa ka gubanaya burco? ma berberaa ka gubanaysa? ma waxaa ka gubanaya maxaan ku irahdaa meeshii uu ka xoogay samaroonka gabiley miyaa ka gubanaysa? waa maya. waxa gubanaya, waxa burburaya, hantida burburaysa, hanti waaba la helaayo, dadka dhimanaya, dadka madaafiicda ku habsanayso. faarax faadhow waa dadkaagii. how can aad dhulbahante u kala saaraysa? xilligan la joogo, this time you addaam. doqon faa'iido ma leh. waxaa maqli jiray doqon ha gargaarsan hana u gargaarin. tii wey. sidee dadkaaga u kala saari karta xilligan? sidee garaadkaaga uga hor imaan kartaa? sidee garaadadaad uga hor imaan kadhaa? sidee maxaan ku irahdaa muuse biixi oo magaaladaada bamgaraynaya oo ummadda ilaahay iyo islaamka oo dhan iyo gaaladuba ay u jeediy UN-ku ay dacwado ka qoreen, sidee aad garb ugu siin karta? sidee ciidan magaaladaada burburiye oo dadkaaga laayo usoo kaxaysan karta? this time ma indhahaa la'da? ma maskaxdaa la'da? ma qalbigaa la'dahay? ma fiyoobid miya? ma falan tahay? fal baa lagu siiyaan u malaynaya. fal sidaan caadi kuma tid, waa sixiran tahay. fal baa lagu cabsiiyey oo lagaa dharjiyey. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. waxaa maqli jira hees tiraahda ilayn doqoni dabka ma kacde daamankay meermeedhisa. ilayn doqoni dabka ma kacde, ilayn doqoni dabka ma kacde daamankay meermeerisa. docday ka jirtabay dhaxani ka dishaay doqoniyey dabkaabe. docday ka jirtabay dhaxani ka dishaay doqoniyey dabkaabe. doqon ilaa lama gargaarsado. maalintaa gargaar u baahan tahay bay adiga ku dilaysa. waa kaasoo waxaa ka mid ah faarax faandhe oo maanta ku doodaya danta jaamac siya, danta dhulbahante weyne aanu lahayn. dhulbahante iyo jaamac siyaad kee weyn? dhulbahante jaamac siyaad waxa weeye dhulbahante laf ka baxda, jilib ka baxa. dhulbahante weyne
ayaa priority-ga iska leh waxay rabaan waxay isku raacsan yihiin ayaa shaqaynaya faarax faandhow jaamac siyaad ma waxaad rabtaa in la fongoro in ma dhahayo jaamac siyaad oo dhan baa wada xun jaamac siyaad oo dhan baa meesha ku wada jira wiilkiisi baaba ka mid ah laakiin adaa kolley godob isu soo jiidaya adigay kugu ekaanaysaa midaan adigaa reerka lagaa saaraya sida la dhaho ma dhibaanka waxaa laga saaray maxaan ku idhaahdaa ii sheeg wuxuu ahaa maxaa la dhahaa ii sheeg wuxuu ahaa gorgaarte oo hawiyu la dhashay sida reerka looga saaray baa lagaaga saari doonaa kolley kuwaas bakti bay cuneen baa looga saaray baa la dhahaa dadka qaarna waxay dhahaan khalad ay galeen baa looga saaray marka maanta khalad aad gashay ayaa reerka lagaaga soo hari doonaa adiga iyo kuwa kula midka ah garaad jaamaca garaad calina wuu sheegay listiga inay ugu jiraan dad badan oo laga saari doono la fongori doono aan la guursan doonin aan la waraysan doonin aanu dadka soo dhexgeli doonin la takoori doona dadkaasaa ka mid noqonaysaa waxaas adigoo ku aqdaamanaya ku hadlay laa xawla walaa quwata ilaa billah war soomaaliyay waa la yaabay war dadka ma sixir bay cunaan dadkan sidan kuma fiyooba magaaladoodii baa la burburinayaa dadkoodii baa la laynayaa markaasay soo raacayaan dadkii burburinaya magaaladoodii dadkooda dadkii laynaya soo raacayaan oo dhammaynaya oo tarabta u dilaya bamka iyo maxaan ku irahdaa iisha madaafiicda aan loo meeldayayn lagu garaacay ninka bal soo raacaya ka waran dadkii burburinaya magaaladiisa dadkiisa laynaya nin magaaladiisa ay safe u tahay dadkiisa ay safe u yihiin ya intan ciidanka meesha keenay maahane ilmihiisa iskuulo dhiganayaan ilaa magaaladoodi lama burburinaye dhaqaalihii sidii u socdo sidii u shaqaysanay sidii u ganacsanayaan jaamacaday u dhiganayaan ciyaaladoodii iyo iskuuladii ya nabad ku hurda oon madaafiic ka duldhacayn isimadiisi iyo guryaha aan lagu duminayn sidee marka dadkaaga usoo raaci karta ugu soo raaci kartaa dadka duminaya magaaladaadii garaadadaadii maxaan ku radaa lagu la shuud garaynaayo la beegsanayo guryaha lagu duminayo dadkaagii qaxinaya dadkaagii maxaan ku irahdaa ay jongolada iyo maxaan ku irahdaa cidlada jiifaan iyo miyiga kaneecada ku cunayso kala yaacayo magaalo kastaba tegay ya sidee usoo raaci kartaa laa xawla walaa quwata walla dadku kala damiir badan kala aragti dheer kala caqli badan kala gubsan ya noocan oo kalena ummadda ma ku jira laa xawla walaa quwata ilaa billah laa noo gargaar adaa gargaar lehe ya damiir sidaan ah weligay ma arag khansiir maa la siiye khansiir waxaa la yidhi khansiirkaa ficil la-aan loo cadaabayo oon ficil lahayne ma hilib khansiir baa taloo la siiye mise fal baa la waraabiye waxaan wax ka badane ya waxaan hunguri kaliya ma ahane ilaa hunguri meel kastuu ka heli karaa qofka bini-aadanka irsaaqadiisa ilaah baa qoray hunguri ma loo gumoobaa akhas calayk qoraan salaamaya